السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا كيسوم تركي أمانة كوليج وكوليج بحرفاضو لغادها قيبه ذا كردون إنجليش عربي إيو تركيشكا قيبتا ما قيبتي لغادة تركيا وأيانتان إنو آد مدى إن أردادي آد إنو سويديان كورسوين كتركيا هدي أجد مقالة مقدش حروتنا إيماني سأديو كيلا جلاس توصلو صح هدي أجد قاب أونلاينا لامبر هذا إيو حكتنا qeybaha dambe ayaynu idinku reebi doonaa ama casharada idinku horreey ayaan lambarada kusoo qornay kaga soo qoray insha allah. inta badan ardayda waxay soo weydiiyaan foomkan oo markii qofka uu waxyaabo raadsanayo kaleento ama uu turkiga uu la macaamilayo la weydiiyo laakiin ku qoran luqadda turkiga. marka sababtan ayaan rabaa inaan kugu tarjumo. sababta ingiliishka aan u soo qaato wax kale ma aha, dadka qaar waxaa jira aanan fahmaynin af soomaaliga si wanaagsan. sababtaas ayaan kugu soo qaatay English. haddii af Soomaaliga aad fahmi wayso waxaad fahmi doontaa English oo ah luqad international ah. aynu bilaawo. kayd form waxaa la lahaa formka diiwaangelinta, registration form la lahaa kayd form. last name iyo first name turkiga waxa ay dhahaan aadi soyadi waa last name, aadina waa first name, magaca koowaad iyo magaca labaad waa passport numerase passport lambarkaaga hadhowtii keento passport numerase markaas marka qofkaan aqoon luqadda xoogaa aad ay urfadan. address waa address caadiga ah. semt ama mahalle hometownka laha waa xaafadda aad markaas degan tahay. sokak ama jadeedeh waxa waaye street wadada. numara waa lambarka caadiga kaada ama waliba lambara keento. shahiir waa magaalo. ulkeen waxa waaye wadan. shahiir ulke uyruk nationality allah dhalasho uyruk. masleg waxaa lahaa occupation xirfadaada ama shaqadaada waxa waaye masleg ayay ku noqonaysaa. doom yeeri halka aku dhalatay waa yeer waa goob, doomna waxa waaye dhalasho doom yeeri. date of birth waxaa lahaa ama doom taariikhda aad dhalateen waxaa lahaa doom taariihi. asalaamu calaykum waa Amaano College. halkan dii soo gaartay channelka subscribe inoo saar, annaga waxay noo tahay dhiirigelin inaan casharada ku joogtayno. asalaamu calaykum.